السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمان أصحابك كحرن جنالك waxay noo socday qisooyinkii nebiyada maantana waxaynu ka hadli doonaa qisada nebi daawud calayhi salaam. Nebi daawud calayhi salaam waxa uu ka dhashay qoys ka tirsan reer bani Israa'iil, waxuuna alla siiyey hibooyin gaar ah. Waxa uu ahaa qof aad u xigmad badan, cod macaan leh, sidoo kalena waxa uu caan ku noqday geesinimo iyo go'aan qaadasho degan. Nebi daawud calayhi salaam waxa uu waqtigiisa inta badan ku qaadan jiray cibaadada iyo dhageysiga sheekooyinka dadkii hore, wuxuuna aad u jeclaa inuu mar walba alla xusuusto. Buuraha iyo shimbirahana waxay la xusi jireen Alle codkiisa macaan dartiis. Dadkuna marka ay maqlaan adkaarta markuu akhrinayo waxay dareemi jireen deganaan iyo nafis. Waqtigii nebi daawud calayhi salaam waxaa jiray nin la oran jiray Daaluud oo ahaa hogaamiyaha ciidamada reer bani Israa'iil, wuxuuna dadkiisa ku hogaaminayay dagaal ay la galayeen nin la oran jiray Jaaluud oo ahaa nin aad u xoog badan oo cabsi geliyay dad badan. Jaaluud waxa uu lahaa ciidan xoog leh, wuxuuna ahaa nin jir ahaan aad u weyn, hub culusna sitay. Dadka oo dhammina way ka cabsanayeen, waxaana laga baqayay in reer bani Israa'iil lagu xasuuqo dagaalkaas. Markii ay galeen dagaalkii, waxaa isku soo baxay Jaaluud iyo nebi daawud calayhi salaam oo markaasi ahaa wiil aad u yar, waxaana dhex maray dagaal xooggan. Halkaasina wuxuu alla guul ku siiyey nebi daawud calayhi salaam oo markaasi halkaa kaga takhalusay Jaaluud. Dagaalkaasina waxaa lagu jebiyey Jaaluud, sidaas ayuuna nebi daawud calayhi salaam uu ku noqday geesi ay dadkiisu jecel yihiin. Nebi daawud calayhi salaam waxa uu noqday mid caan ah, dadkiisana waxa ay bilaabeen inay ixtiraamaan. Markii dambena alla waxa uu siiyey boqortooyo, waxuuna noqday boqor cadaalad badan. Nebi daawud calayhi salaam waxa uu dadkiisa ku xukumi jiray cadaalad, mana ayxan jirin, waxuuna ahaa mid dhexdhexaad ah, dadkana waxa uu xukumi jiray si wanaagsan. Allana waxa uu siiyey xigmad aan caadi ahayn, wuxuuna ka mid noqday nebiyada ugu garashada badan. Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nebi daawud calayhi salaam uu siiyey kitaabka Zabuur. Kitaabkani waxa uu xambaarsanaa xigmad iyo casharo badan oo ku saabsan cibaadada Alle iyo akhlaaqda wanaagsan. Nebi daawud calayhi salaam waxa uu dadka baray cibaadada iyo toobadda, wuxuuna u sheegay in Alla subxaanahu wa tacaala uu yahay mid naxariis badan, isla markaana uu jecel yahay kuwa u toobad keena. Qisadan teeda xigtana waxaan ku soo qaadan doonaa qisada nebi Suleymaan calayhi salaam. intaynu isaga imanayno kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.